إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد موضوعنا maanta ciwaankiisu waxa weeyaan العشرة بين الزوجين أما الحقوق بين الزوجين labada qof xaqa ay isku leeyihiin معناها ما للمرأة وما عليها وما للرجل وما عليه ninka iyo gabadhu mid walba waxa lagu leeyahay waajib baa saaran xaqna isagu leeyahay arintaasi sida diinteenu ay u dhigtay iyo sida u miisaantay iyo sida faa'iidada faraha badan ee ku jira inuu arki doona inaga oo soo qaadan doona aayaadka quraanka ah iyo axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam marka kol haduu shaygu diin yahay waxa laga maarmaana oo adoonnimada xaqiijinteeda kamida inaynu dhaqan gelino oo arrimahan aynu ka waramayna aanu ninkuna la yaabin gabadhuna aanay la yaabin waxa xusid mudan xadaarada reer galbeedka ama gaaleed iyo kufaar waxa ay ku tilmaamaan iyagu oo barbar marka diinta ilaahay la hareer maro inta inagu dhibicdo waa inaanay ina weydaarinin diinta ilaahay gabadhu marka inta dhageysato waa inay aqbashaa adoonnimadaanay kamid hadduu qofku aqbali waana adoonnimadii mu xaqiijinin ninkuna waa inuu aqbalaa ugu horeyn xuquuqda waxaan soo horeysiin doonaa ta dumarka labaataneye arrimood oo xaqna ah nicmo ilaahay uu siiyay dumarkana ah ayaynu soo tirin doonaa dabeetana waxaynu ku xigsiin doonaa dhowr iyo 10 xaq oo ninku uu leeyahay si kale haddaynu dhigno dhinacna kolka laga eego waa nicmo ilaahay uu siiyay adoomaha waa mar ilaahay ugu mana sheeganaya mar nicmay tahay mar waajib bay tahay mar xaq bay tahay wuxuu dhan way isugu jirtaa taw horeysa weeyaane quraanka kariimka ilaahay waxa uu ku tilmaamay dumarku inay leeyihiin xaqi iyaga ninku uu kula haayo kale inay leeyihiin dabadna ilaahay baa wuxuu ku yiri aayada 228 ee suuratul baqara walahunna mithlu alladhi alayhima bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja dumarkii waxa ay leeyihiin waajibkii lagu lahaa ama xaqi lagu lahaayo kale iyaguna leeyihiin bil ma'ruf si sama ah oo wanaagsan ba xaqooda loo siin walirrijali alayhinna daraja xaquna raguna wuxuu leeyahay xaq dheeraada oo xagga maamulka iyo maareynta iyo habaynta ah taasi mid weeye ilaahay wuxuu tilmaamay midna inaanu qadinin midna muu ka calafgoynin xaqiisii mid waliba uu leeyahay xaqiisii raguna xaqoodii bay leeyihiin dumarkuna xaqoodii bay leeyihiin marka ayada ilaahay wuxuu ku cadeynayaa cid xaq leh inaanay ahayn rag oo qura sida daraadeed ayaa asxaabigii qaaliga ahaa ee la oran jiray Abdullah ibn Abbas ilaahay ka raali noqdee waxa uu lahaa inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li anigoo aayadan eegaya macnaheeda waxaan jecelahay markaan xaaskayga la kulmayo ama aan u tagayo inaan isu qurxiyo oo aan isu nadiifiyo aan isu wanaajiyo sida aanu jecelahay inay iyaduba isu kay qurxiso
waxaana laga faa'iideysanayaa macnaha aayadda haddii iyadii nadaafad laga doono isqurxin laga doonay isaga in laga daayay ma aha ilaa wuxuu doonayaabay doonaysaaye xuquuqdeedii waxaa ka mid ah inuu ilaahay raggii faray inay dumarka ula dhaqmaan si aada u wanaagsan oo gaar ah markaasaa ilaahay waxa uu yidhi aayaddaa suuratu nisaa ku sugan wacaashiruuhunna bilmacruuf fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-a wayajcal allahu fiihi khayra kahiira dumarka waxaa ula dhaqantaan si wanaagsan ula dhaqma haddaa waxyaabaha qaarkood ku karaahiyeysataanna waxaa karaahiyeysanaysaan oo khayr badani ku jiraabaa badan buu ilaahay subxaana marka halkaa waxaad aragtay amar buu ilaahay ku siiyey raggii inay dumarkii si wanaagsan ula dhaqmaan marka culamaau tafsiir waxa ay leeyihiin mucaasharadan iyo la dhaqankan wanaagsan ee ilaahay ragga uu faruuri dumarka kula dhaqma waa mid ka dheeraada in wax la cuno iyo wax la xidho iyo guri la galo arrin ka dheeraada wey intaasi way ku jirtaa oo dhar iyo dhuun iyo guriba way leedahay gabadhii oo ninkay ku leedahay laakiin waxyaabaha kasii dheeraadka ah ee laga fahmaya waxaa ka mid a labada qof qalbigoodii waa inuu wada socdo oo qofka dareenkiisii la dhowro iyo qalbigiisii si uu nolol raaxa lahoo nafisla u qaadan karo oo aanu diiqad gelin waxaa ka mid a qofkan tarbiyadiisii in la tarbiyeeyo waxaa ka mid a mucaasharada iyo la dhaqanka wanaagsan in ninkii gabadhii tusaale wanaagsan uu noqdo ila isagiiba hogaamiyaah waxaa ka mid a la dhaqankan wanaagsan ilaahay aayadda uu inagu faray waxbarashadii iyo aqoontii inuu kordhiyo intuba la dhaqanka wanaagsan bay ka mid tahay asxaabtu ridwaanullaahi calayhim lamuu fududayn daliilka ilaahay uu sheegaya qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray lama sahlanayn sida ummad badan oo islaam sheeganaysa uula fudud yahay marka qur-aan yimaado nebigay u celin jireen calayhi salaatu wasalaam tafsiirkiisa oo odhan jireen maxaa looga jeeda aayadda maadaamuu marjicii u weynaayo loola noqonayo qur-aanka u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka nin asxaabiya baa waxa uu nebiga ku yidhi yaa rasuula allahi maa xaqu zawjatina calayh waa kan ilaahay sidaa noo amrae ooridu maxay xaq nagu leedahay nin walba maxay xaaskiisu xaq ku leedahay marka rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saxiix fain adcamtaha an tudcimahaa idaa adcamta wataksuuhaa ida ktasayta walaa tadrib ilwajha walaa tuqabix walaa tahjur ilaa fi lbayt markaad wax cunayso waa inaad wax siiso markaad dhar xidhanaysana waa inaad iyadii dhar usoo goyso haddii ay dhacdaba inaad isyar qoonsataan ila waa laba qof oo wada jooge waxyeelaha ka gaadhsiinin wejiga ilaa waa halkii qofka muunadiisa iyo muuqaalkiisa u wanaagsanayde walaa tahjur ilaa fi lbayt haddii isqabataan ama isu cadhootaanna kuuma banaano inaad guriga uga guurto oo albeerka iyo meel kale aad tagto laakiin waa inaad guriga dhexdiisa uun si ay isu muslixan kartaan aada dhinac kale u durugtaa haddii ay kaliftaba qofkan dumara xaqa ay ninkii ku leedahay waxaa ka mid ah inuu u samafalo alixsaanu ilayha maadaam hiya sadiiqatuhu fi lxayaa maadaama ay la nooshahay oo wehelkiisii ay tahay wixii samafal uu kari karaya waa inaanu waxba ka hakranin ilan ilaahay baa wuxuu ina faray samafalka ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay cadaaladna uu ina faro qofku dee xaqiisii inuu qaato ah samafalna waa layna faray markaa cid aad u samafasho waxa ugu wanaagsan xaaskaaga haddaad cadaalad samayso ood u cadaalad samayso wuxuunaad ka mid noqon doontaa kuwuu nebigu u bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulka ilaahay ku yidhi xadiidkii saxiixa ahaa ee muslim warinayay almuqsituuna calaa manaabira min nuur dadka cadaaladda sameeyaa waxa ay saaran yihiin minaarada dhaadheer ama taawaro dhaadheer baa ilaahay dushooda saarayaa maalinta qiyaamahee dadku dhididkooda ay ku dhex qarsoomaan can yamiin araxmaani wa kiltaa yadayhi yamiin ilaaha raxmaankaa midigtiisay taagayiin labadiisuba waa midige waa kuwee kuwaa cadaaladda samaynaya aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa wullu
وكوا كو عدالة سماية إهلكوده iyo xukunkooda iyo wixii ay madax ka yihiin ooriyahoodii iyo wadkooda u cadaalad sameeyaan iyo ehelkooda waxay u cadaalad sameeyaan cidda ay kala xukumayaan oo dhan marka liiskaas aad ku biiraysaayo dadka ilaahay maalinta qiyaamaha uu korgeynayo ayaad ka mid noqonaysa quraanka kariimka ah ilaahay wuxuu ugu manna sheegtay ragga waxyaabo ugu manna sheegtay waxa kamid ah inuu siiyay dumar ay la noolaadaan oo ay weheshadaan oo ay la barwaaqaystaan taasoo uu ku tilmaamay inay nicmooyinka ilaahay ka mid tahay aayaadka ilaahayna ka mid markaas ilaahay waxa uu min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunu ilayha waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ilaahay aayadihiisa cajaa'ibka badan waxa ka mid ah si ay noloshu u sii socon karto si taranku u sii jiri karo si guri uu samaysmi karo ubad uu ka soo baxo waxa ilaahay idin abuuray ooriyo idinkuna dhasheen oo idinku lamaan oo weheshataa kalgacal iyo naxariista uu idin dhex dhigay qofkaasi inta ooridu ay ka maqantay wehelkii uu ka maqan kalgacalkii iyo naxariistiina waa ka maqantay dhadhankii noloshuna waa ka maqantay ninkuna waa sidaa gabadhuna waa sidaa waxaynu halkan ku arkaynaa inuu iska batay single motherkii iyo single fatherkii ruux dumar oo gooni u taagan iyo nin gooni u taagan oo aad moodo sidii malaa'igta inay ka maarmeen lamaanahoodii xalaasha ahaa ma ka maarmayeen qofku weligiiba hays yeelyeelee dee naftiisa been uma sheegi karayo marka ruuxa dumarka ahina sidaa ilaahay uu sheegay waxay u baahan tahay nin ay weheshato oo nolol macaan ay wada qaataan oo ubadna uu ka farcamo isagiina wuxuu u baahan yahay oori buu u baahan yahay zawjayn waxa loogu magacaabay laba isku lamaan weeye sida shayga beerka ahi labada uu yahay iskabaya waa saas oo kale marka waaxdi way maqan tahay qofkan intuu kali taagan yahay waliba marka aynu ku noolnahay wadcigan ama meeshan gaalada marka lagu nool yahay waxa uu u baahan yahay qofkii lamaana xalaal aynu helo si uu cafiif u noqon karo u dhowrsoonaan karo oo xaaraan iyo xumaan iyo ishiisa meel jaleecda uga dhowrsoonaan karo si uu tarmi karo qofkii si diintiisa ay u dhamaystirmi karto marka waxaynu ku dhiiri gelinaynaa walaalaha rag iyo dumarba inuu qofku samaysto wehelkiisa oo ninku had iyo jeer gabadhu ku asturnaada ay jirto oo kelida uu iska daayo ruuxa dumarka ayna inay nin raadsato walow adduunba ha ku raadsatee ila ceeb maahe inay nin wanaagsan raadsataa waxa quraanka kariimka marka ilaahay saasuu ku tilmaamay waa baahida la isu qaba daraadeed weey xuquuqda waxa kamid ah ruuxa dumarkii ay ku leedahay ragii min xaqها على الوالد الزواج حق والدك كل هذا أبيه هويبه وإنه يجوريان وترى إنه مكقالين وأبيه هويو ووالدك حق أي قبل كل هذا هاي وحويان إنه يجوريان أي لبعض الدونان عدي كل معنا لهاي أي نرش الله قاعد لهاي وده يا شيء إنه هو حيورن شرين روح تمر كل كدي جا عدد وكيماده نبر باك قومي nabarkaana waxa bogsiin kara uu nin guursada si kale oo nabarkaasi uu ku bogsanaya ma jiro weligii uu dhiigaya hadii kale marka hadii la doonayo inuu nabarkaasi bogsado waa in la raadsada lamaanaheedii nabarka ka bogsiin lahaa u raaxayn lahaa ubad wanaagsanina uu marka ilaahay uu kala siin lahaa sida daraadeed ba xadiidkii saxiixa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra warinaya وحوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير أو عريض مركو يدين ما دنن أكرر دين تيس هي أخلاق ديس وقوريها بلهن هداد ديدان فتنة دعي وين بنقول عليه الصلاة والسلام فتنة دا سوين عرقنا ومركو قوركو يراد السنة بضتا أوركا بطا ولدك أنا أبلهين بايمادة استيلكا بطا عيبتا بطا waxaa soo dhan mujtamaco isnacaaba yimaada waxaa soo dhan muxuu ku joogsan karaa in nabigu ka digayaa ee asturnaanta marka hablahan teenage-ka ah ee daayarta ah hooyooyinka hadaa tihiin imika hooyooyinkii baa igu hor fadhidaane la dadaala oo halala raadsada ragii wanaagsanaa dib u dajin ku sameyn lahaa ee xil qaadi lahaa ama wadankii ha ahaato ama halkan ba ha ahaato qof waliba ay isku jinsi yihiin
oo isfahmayaan oo isdhaqan garanayaan oo akhlaaq iyo diin leh nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam hadduu idin yimaado haddaanu ku imanna waa la mid haddii aanu ku imanna waa inaad adigu la doonataa ceebna maaha waayo cumar ibnu khataab allaha ka raali noqdee diinantiisii xafsa ayuu la raadinayaa abubakar oo uu la raadinayaa cuthmaan oo labaduba ay ka cudur daaranayaan oo nabigaa guursanaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ay xaq u leedahay gabadhu waxaa ka mid a ehelkii xaq ugu leedahay alistiidaan marka la guurinayo inantii waa inaan la aftuubin waa inaan adduun la siisanin waa inaan lagu guurin oon cid kale weji lagaga doonanin laakiin qofkani waa qof qaaliya raqiis laga dhigi maayo istiidaan baa lagu samaynaya istiidaanku waxa weeye waa in fasax la weydiiyaa inanta fasaxa la weydiinayaa waxa uu sheegayaa inay inantu qofkan ay nolosha la qaadanayso ku qanacsantay ilaa dhowto reer gabadh baa ka raacda baa leeyahay waalidkeed la guursan maayada la guursanaya marka qof ay ku qanacsantahay hadhow aanay ka soo cararin waa inuu yahay qofkani haddii la yidhaahdo abba waanu kugu ducaynay ama hooyo waanu kugu ducaynay ama ducaya habaar kala dooro dee maalmay la joogaya waa iskaga soo carari haddii la yidhaahdo kanaa baasaboor sita ama lacag sita oo dabeetana inantiisaa loogu soo riixo diiqad la geliyo hadhow bay kasoo carari doonta marka lama rabo islaamka dhexdiisa qoys degdeg u burbura laakiin waxaa la doonayaa qoys laga fiirsaday dhismihiisa si noloshiisu ay u waarto nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam idaa araada arrajulu an yuzawija ibnatah falyasta'dinha markuu qofku inantiisa guurinayo ha weydiista fasax hiblaayo ninkaa raalli ma ka tahay iska eeg oo balla hadal oo inaad ku qanacdiyo in kale haa markay tidhaahda isku garato warkaasi waa dhan yahay iyadoo khajirsanayn oo dee aan la dirqiyeyn waxyaabahan aynu ka warramaynaa waa xuquuq u badan inay ku leedahay zawjka laakiin qaybna ay ku leedahay gabadhii waalidka iyo ehelka saa aynu tirinayno waxa islaamku uu xaq u siiyey inay diinteedii hesho gabadhu oo ajri iyo thawaab ayay doonaysaa adduunyo kaliya dooni maysa gabadhu diinna way doonaysa ajrina way doonaysa sadaqana way doonaysa aakhirana way doonaysa intaaba inuu ninku la dadaalo wey oo ajriga keligii aanu doonana iyadana la doono diin iyo cibaado keligii aanu doonine ee iyadana uu la doono sadaqada keligii aanu bixinina iyadana uu se u bixin lahayd ku dhiirigeliyo markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku leeyahay xadiidkii saxiixa ahaa gabadhu markay wax ka bixiso raashinka yaalla gurigeeda hayra mufsida iyadoo aan reerka kharibayn oon dhaqaala burbur ku samaynaynin markay raashinkii iyo adduunkii guriga yaalla wax ka bixiso ajriga barhkeeday leedahay ajrigeedii bay leedahay ilaahay ninka wuxuu siinayaa ajri dhammaystiran maadaamuu xoolahan soo shaqeeyey iyadiina waxaa la siinayaa ajri dhammaystiran maadaama ay bixisay midina soo shaqayntiibuu ku leeyahy midina bixintiibuu ku leeyahy marka halkaa waxaynu ka arkaynaa waxaa loo ogol yahay gabadhii oo ninkii xaq ugu leedahay inuu u dhiibo xoolihiisii badh xoolihiisii inuu qayb u fasaxo idhaahda heblaayoy sidaan aniguba sadaqada u bixinayo adiguna intaa bixi oo kuu ku tababaro si ay ajri u hesho dee iyadiina waa inay ajri heshaa aakhiray doonaysa ajri bay doonaysaa sadaqay doonaysa marka waa inaanu ogolaan waa inaanu odhanin adigu halkan un ii fadhi ila islaantaydii baa tahay adigu dee anaa wax kuu dhiibtay adigu qasnada haw laakiin waa inuu ogolaadaa u idhaahdaa guriga waxbaad ka bixin kartaa kaashka waxbaad ka bixin kartaa laakiin dee reerka wuxuu isku naco oo gacan culusa inaanay ku dhicin baa uu nebigu ka dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam ilaa haddii wax badan ay bixiso biilkiiba baxo ha dhowto waa laga yaabaa in la isqoonsado taasuu rasuul ka digaya calayhi salaatu wasalaam gabadhu waa inay u tixgelisaa ninkii markay nin hesho in diinteeda kala bari lahay uu ka saaciday ninkiina markuu gabadhii helo waa inuu aaminaa diintii badh ilahay inuu asturay waa baahida guurka loo qabo ayuu ka turjumaya xadiidkani saxiixahay rasuulku waxa uu leeyahy idaa tazawaja alcabdu faqad istakmala nisfa diini addoonku markuu guursado rag iyo dumarba diintiisii badh baa ilahay u dhammaystira waxaynu u baahan nahayna waa diin dhammaystiran ilahayna saasuu inoogu mana sheegay alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan idin kaamil yeelay diintiina marka diin kaamil aynu u baahanay diin liidata iyo diin daciifa iyo diin kala baran midna uma baahan ilahay baynu ka magan gallay subxaana wa tacaala
قفك هدي الدنيا ذو كان نقصان تو إيمانك يدين تعود لما يستريهين وحبك ما مغنى روح الدمر waxa ay xaq ugu leedahay ninkii inuu garab galo oo uu saacido sida iyaduba nolosha ay u saacidayso ay ugu shaqaynayso isagana ceeb kuma ahay ammaan bay ku tahay ajrina wuu ka helayaa sida ugu shaqaynayso hadduu ugu shaqeeyo xuquuqdeedii baynu wadnaa kuwiisii way dambeeyaane markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi xadiisu warinaya Cirbaad ibn Saariya idaa saqa ar-rajulu imra'atahu ujir فقمت إليها فسقتها وأخبرتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي واحد يقول نينكم مركا أو حاس كيس بيها ورابية وحكا لدايو هقول كلو قبتيس كده مركا أو بيا أصدروا هذا هبلاية وأنكو ساعدة عب فرقا كعب عانها نانكو سيا عب شراب كنانكو سيا عب أجربوا هلا يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام أقلبا قف بلا إسكو أبابو ليا sida isu jeclaan lahaayeen isu garabsan lahaayeen isu kabi lahaayeen ayaa la isku abaabulaya nabigu isku abaabulaya calayhi salaatu wasalaam marka asxaabigan wuxuu doonay ilaa asxaabtu diin iyo ajri iyo aakhiro iyo jannay doonayaan naskana si degdeg ah bay ugu camal falayaan marka wuxuu doonay asxaabigani inuu markiiba qaado koobka abaalmarinta xaaskiisii buu tagay biyihii buu soo daray dabeetana wuxuu dhiga qabo cab waxa tiri war maxaa dhacay ila waan haraaday ii soo dar kumaan oranine ma xadiiskaasaan maqlaan ku camal falayaa markiiba casharkiibu si degdeg ah u dabiqay oo u camal falay waxay gabadhu xaq ugu leedahay ninka alla yuhsinaha wala yudayiq calayha inaanu murug gelinin ee uu ka ilaaliyo wax kasta oo diiqad gelinaya waanu gabadhii ka ilaaliya rasuulku sallallahu sida uu nabigu dhiiri gelinaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigu waxa uu yiri ida qadima ahadukum laylan fala ya'tiyanna ahlahu turuqa ninku markuu yimaado habeen ee uu safar ka yimaado yaanu ku soo guura galin xaafadiisa oo guura gal ugu imanin laakiin maalin weyn ha yimaado reerku loog yahay si gabadhii ay nadiifiso si timiya cidiya wixii la isaga nadiifiyo si qof wanaagsan oo ka farxisa uu la kulmo ilan diyaar garow ma ilahayn markii ninkeedu ka maqnaaye marka haddaba haday dhacdo in si kale la isku ogaan karayo haday dhici karayso oo mesela sidaan imika kale da telefoonaa jira iyo qalabkan la isu baahinayo lagu wada xiriirayo taasoo kale kolkay jirto dee wuu soo warrami karaa marka la diidayo wuxuuna inuu qaflad ku qabto laakiin kol hadduu idhaahdo waqtigaasaan imanayaa oo u caddeeyo wax dhibi ma jiro maxaa intaa la ilaalinaya wixii iyada ka naxinaya la ilaalinaya oo dee way neceb tahay oo ma jecla ninkeedii xaalad xun inuu ugu yimaado ama basari uu ku tilmaamay iyo qofaan dee dadaalaynin marka iyadoo gaashaaman oo habaysan inuu arko ninkeedu ayay jeceshahay marka xaaladaas oo kale ku jeceshay iyaduna isaguna waa inuu sidii la raadsadaa la baadi doonaa ruuxa dumarka ah ninkii wuxuu aaminayaa inay tahay sacaadatu dunya macnaha noloshii adduunyada qayb inay ka mid tahay heerkaasaaba la gaadhsiiyeyba oo waxaa la ninoo waxaad u aamintaa inay tahay nicmadii adduunyada oo ilaahay uu ku siiyo tani rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay arbacun min asacaada saddex arrimood waxay ka mid yihiin nolosha wacan ee qurxoon ee macaan saddex arrimood hadduu ilaahay siiyey ninka wuxuu siiyey nolol macaan oo qurux badan almar'atu saalix والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني ومحي وقبر وناكسن قبر وناكسن الله يقانو إيمان بوربورا وإيمان كيدو لما يسترين يقول واسعة يجار وناكسن يقاليد وناكسن ليش هتشوكتها هذا فرتاكو هايسو نولا شو يكون معانت قولي جيبات كون راحي سنايس دبدينا وات كون راحي سنايس afartaa in wixii ka soo horjeedaana waa nolosha diiqada leh ooridiyo qallafsan gurigiyo cidhiidhiya jaarkiisiyo gaal kaafir oo macsiyo iyo dhambeela ka soo duulayaana oo fasaad iyo xumaantu ku badan tahay oo caruurtu kaaga xumaanayso iyo gaadiid xun oo aan dhanna ku wadayn oo muraadkii aan ku qabanayn afartaasina guul darrada ayay ka mid yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam
ruuxa dumarihi waxa ay xaq ugu leedahay ninka inaanu ka maqnaanin muddo aan caadi ahayn haddaanu cibaado ku maqnayn oonu cilmi ku maqnayn oonu iyada usoo shaqaynaynin wax cudurdaarahoo badani aanu jirin inaanu gabadhii ka maqnaanin xaq waxay ugu leedahay inuu la joogo waayo wehel bay u baahan tahay cunno keliya uma baahna qofkani wehel bay u baahan tahay galmay u baahan tahay taran bay u baahan tahay tarbiyay u baahan tahay baahidii la isu guursaday waxaa idin la wada joogo marka waxaa u fahamtaan haddii aad tihiin xaasaska ku nool wadamada dabadda waxaa u fahamtaan kala maqnaanshuhu nooc ciqaaba inuu yahay wada jooguna nooc raaxa inuu yahay waa duruufun wixii lagu kala maqnaada waayo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa markuu ka warramayay qaybaha noloshu ay ku taagantahay qiimaha badan man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha man asbaxa aamina fii sirbi qofka amni haysta isagoo qoyskiisii la jooga iyo ehelkiisii labadaas u horraysiye waana iska amniyo cabsi ma jirto kow ehelkiisiina wuu la joogaa oo ma kala maqna waa caafimaad qabaa cunadiina uu haysta adduunyadii oo dhan isagaa la isugu soo gororiyey nicmadii taalay qaaradaha kala duwan waxba kama maqna wax u warwaraaba ma yaalla buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka qadiyadda wada joogana intii la kari karo waa in lagu xisaabtamaa marka uu la joogo ninku xaaskiisa tarbiyadeedii baa wanaagsanaaysoo caruurta laftigoodii waxa ay helayaan haymanada iyo hogaaminta waalidka ayaa iyaguna ay ka helayaan tarbiyad wanaagsan oo qalloocii baa ka baaya qisadii cumarna waynu garanaynaa muwada u maalik ku sugnayd markii uu dhageystay habeen gabadh gabyayso ninkeedii oo ka maqan ka warwarsan waa kii kolkii dambe go-aanka gaadhay ahaa ciidamadu markay muddo maqan yihiinba in lasoo fasaxo xuquuqdii waxaa ka mida gabadhu ay ninka ku lahayd inuu la kaftami karo oo ay markaa nolol aan brotocolaad ku salaysnayn noloshu waxaa iga ilaaliya waxaa isi mid ku soconaysa maaha laakiin waa nolol macanaasa oo la isla legdamayo oo mar la isla farxayo oo mar la yaro cadhoonayo oo mar cilmi la kala qaadanayo oo mar la cibaadaysanayo nabigaa tusaale inoogu calayhi salaatu wasalaam noloshu saasay macno ku leedahay laba qof oo saaxiib macaana ayaa meeshii wada jooga oo aan ahayn dee laba qof isku jira laba isu dudayo qof isku jira sawirkoodii waa inaan u egaanine laakiin nolol farxad leh waa inay wada qaadanayaan oo saaxiibtinimo caaisha radia allahu canha maalin maalmaha ka mida bay nebiga la kaftantay waxay leedahay bal waxaad ka warantaa rasuul allah haddii ay jiraan laba doox oo kaasina barwaaqo yahay oo geedaleeya kaasina abaariya reerkaaga iyomaad furi lahayd iyomaad dejin lahayd dee ka barwaaqadaabaan dejin lahaa ha marka laydh bay ushidaysa waxay leedahay la qabso aniguna waxaan ahay meeshii geedaha lahayd ee barwaaqada ahayd maadaama aan ahay inan yar oo curdina dee dadka iga waaweynina waa meeshaa markaa aan geedaheedu wanaagsanayn sawir noocaasa bay siinaysaa nabiguna wuu la fahmaya calayhi salaatu wasalaam waana kaftan weyi caaisha maalin maalmaha ka mid a ayaa rasuulka codka kor ay igu qaaday sidii wax yar dee dhawaaqii intii inaan caadi ahayn dee nuu ruux dumar iyo ninkeeduna mararka qaarkoodda waa isku yaro buuqi karaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku diiday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in kor loogu qaado codka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowl codkana kor haugu qaadina nebiga hana ku qaylinina baale abubakar baa meesha jooga wuu canaantay markaa waa inantiisii oridiiba ha u ahaata nebiga laakiin abubakar waa inantiisii meeshiina wuu joogaa iyadiibuu ku boodayo markaasuu ka aamus nebiga markuu gacanta saa ku yidhi buu nebiguna gacanta uga dhigay oo wuxuu yidhi dee islaanta haiga dilin gabadha dee haiga dilin bui inanta haiga dilin ila adu waa dhashay laakiin waa oridaydi wuu ka waabiyo isagaa isaga dhigay rasuulku sala allahu calayh wasalam si aanu abubakar waxba ugu yaro dhufanin abubakar markaa xaggaasuu isaga dhaqaaqay dabeedna caaishuu nebigu eegayo markaasaa wuxuu ihi miyaanaad arkaynin sidaan odayga kaaga waabiyey waxba uu ku gaadhsiin kara waa dee waan kaa dhex galay bui ma arkaysa saan waa anigii kugu guntaday bui waa ku difaacey ma arkaysa iyadiina way qosasho waa la isla qoslay abubakar baa soo noqday oo wuxuu yihi isagoo dareenka isbedelay arkaya ashrikaanii fii silmikuma kamaa ashraktumani fii xarbikuma xadiidku waa saxiix dee farxaddiina iga qayb geliya ilaan dagaalkiiba oo idinkii iga qayb geliyeen
intaan idin kala celinaya waa anigii meesha soo galay dee la iga saaray dee farxadana iga qayb galiyay buu idinkan isla qoslay marka halkaa waxaad ka arkaysaa in loo baahan yahay ninkiiyo gabadhu inay kaftami karaan kaftanaan turxaan lahayn kaftanka Soomaalidu waxaad moodaa inuu mid lafjabaya oo yara kadeedan oo nasabadeedii buu caayaya qoladiisu isu amaanaya iyadii buu dhaliilaya reerkoodii buu dhaliilaya qabyaaladii iyo waxa sala isugu faanay ka maaha laakiin waa mid shakhsiyada qofka iyo arrimahaas uu la xiriira iyo in maaragtay noloshu la macaaneeyo waxa aan ku wanaagsanayn ninkii caybun calayhi darbuha sabab la'aan waxa ku ceeba inuu iyadii gacan gaarsiiyo waa ceeb weey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku leeyahay xadiis saxiixa ala asa an yadriba ahadukum imra'atahu darb al-ama ala khayrukum li ahli arma laga yaabaa in xaaskiisa inuu garaaco gacan saaro ar waxa idin ku khayr badan ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ka ehelkiisa ugu khayr badan kaasa idin ku khayr badan ogaada marka de gacan uu gabadhii u qaado iyo ooridiisi arrinaan wanaagsaneyn weey quraankuna xaaladda uu gacanta sheegay waxa weeye marka ay jirto uun dee duruuf adag iyo qofkii oo madax taagtay ama caasi garowday waxyaabaha nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay waxa kamida an ta'addi calayha a'zam dhunub in gabadhii lagu xadgudbo waxa uu islaamku u tixgeliyay dunuubta waaweyn in iyadii lagu xadgudbo dunuubta waaweyn buu islaamku u tixgeliyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay in a'zama dhunubi 'inda Allah rajulun tazawwaja imra'a falamma qada hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bimahriha wa rajulun ista'mala rajulan fadhahaba biujratihi wa akhar yaqtulu dabatan 'abatha saddex qof buu tilmaamay dunuubta waaweyn inay galeen mid waxa weeye nin gabadh guursaday oo markuu muraadkiisii ka dhameystay iyo raaxadiisii iska furay oo meherkeedii dafiray oo yiriyaad sheegaysaa de wax meherood igu leedahay ma jirayna kala warwareeji ama waa firdhadayba meel laga soo qabtaba ma joogaba meherkii baa shaw ku batay markaas uu la baxsaday taariib buu galay kaasoo kale dambi weyn buu galay ka labaadna waxa weeyaan nin ka shaqaysiiyay qof bani aadam muraadkiisii buu ka dhameystay mushqaayadii buu diiday markaa wuu dafiray wuxuu ama bil haata ama sanad haata ama maalin haata wixii ujradii mushqaayada oo habu dafiray ka saddexaad waxa weeyaan qof neef ama xayawaan halka ku soo xidhayo ku ciyaaraya oo sidii ugu ciyaarayay dilay xadiidku waa saxiix weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu ka warramayo gabadha waxa uu tilmaamayaa in ay la mid tahay ninkii xagga bani aadamnimada xagga cibaadada xagga taqwada xagga Allah usinaashaa waa kala inama an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal xadiidkii ana si Aisha ay warinayna saxiixa dumarku waxa ay kuwa rag laga jeexay ilaahay baa wuxuu khalaqa minha zawjaha nabi aadam calayhi salaatu wasalaam kulku keligii cidla istaagi kara waayay ee u baahday lamaane nolosha uu la qaato ku raaxaysto liyaskuna ilayha si uu u heshado isla markaana tarankii uu yimaado ayaa ilaahay tan uu ka abuuray idan markaa waxaynu halkaa ka arkaynaa sida uu nabigu tilmaamayo waa kuwa lamida xaqi bani aadamnimada iyo alla ka cabsiga cibaadada intaba ruuxa dumarka ah ninkii waxa uu aaminayaa marka uu la dhaqmayo la nool yahay waxa uu siinayaa inuu sadaqeeyo hatta isagoo ubadkiisii masruufaya oo ooridiisii masruufaya oo ehelkiisii uu la raaxaysanayo wax la cunayay wax siinaya aba lagu qorayba sadaqa taa dadka kala siinaysay la mid ah ka si ajri badan حديث ابن عمر ورني مرفوعها وحنبي يقول ما أعطى الرجل امرأته صدقة حاسكي سوحة وننكو صينية وصدقة سين أركضون يدو واحد صينية سنة وصدقة مركن يدو ونكسنو بطراعنيس تلاقيه الكيلو واد مصروفتي إلهي أكتي سنة أكون كيسي أجربا لقوقش بوحوين وي نبي عليه الصلاة والسلام روح الدمر كأ arrinkeeda saa aynu arkayno aad buu uga warramay iyo xaq ay leedahay xaqeeda aad buu adkeeyay in lagu xadgudbana waa ka digay markaas rasuulku waxa uu inni uharriju haqq ad-da'ifayn lil-yatima wal-mar'a wa ruuxan inuu dambi leeyahay idin ka digaya dambigiisa inaan la qaadanin ee laga digtoonaado la iska ilaaliyo idin sheegaya ruuxa dumarka ah ee aan yatiimada ah
ama aan le gabadha ruuxa dumarka ah iyo agoonka ilmaha yaran aabaha lahayn ee agoonka ah iyo gabadha hoorida ta aad qabto iyo tu ehelkaagaaba labada xaqooda ha la iska ilaaliyo labada naar baa lagu mutaysanaya hadii lagu xadgudbo labada dambi weyn baa laga qaadanaya maxaa ka weyn oo oran lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa dumarka ah xaqeeda uu si adkeeyay nabigu waa si adkeeyay rag uu si gaar ah ula hadlay istawsu bin nisaa khayra maxaa kale oran lahaa ragii buu gaar ula hadlaya wuxuu leeyahay war nin walba saaxiibka u sheegay inuu ehelkiisa wanaajiyo waar hebel waxaaska wanaaji ka kalena waa inuu waar hebel waxaaska wanaaji waar reerka xumayni waar ha ku xadgudbin waar xaqooda si idinku marka isku goonida tihiin dumarka isku dirina yaan la isku jahaynin yaan la isku xadgudbin yaan la isu faanin laakiin nin waliba ka kala ha u dardaarmay inuu oridiisa wanaajiyo si ay gabadh u hesho xuquuqda waxyaabaha habboon waxa kamid ah inay doorato qofka qof wanaagsan oo la yaqaan waa inay iimaan ku doorato waxa iman doona kolka inay xuquuqdeeda hesho insha Allah ta'ala xadiidkii saxiixa ah Aisha ay warinaysa wuxuu nabigu yiri takhayyaru linutafikum wankihu al-akfa wa ankihu ilayhim anduftiina meesha dhigaysaan ama biyihiina taranka meesha dhigaysaan doorta hadday tahay gabadhaad guursanayso iyo hadday tahay ninka loo guurinayo xaaskaba ninkiina waa in la doorto gabadhiina waa in la doorto sidaas lagu heli karaya xuquuqdan inay hirgasho inta waxaynu kaga gudbaynaa xaqii ninka ay gabadhu ku lahayd waxaynu tirin doonaa si kooban bal u dul mari doonaa insha Allah xuquuqda iyadii lagu leeyahay maadaama iyadii waajibkeeda aynu soo sheegnay xaqna waa lagu leeyahay ka horeeya waxa weeye adaaca waa inay ka tala qaadataa meeshii dawlad yar baa dhisan oo qoys la yiraahdo qaybihii mujtamacu ka koobmaya mid kamid ah dawladda weyni qoysas bay ka koobantay marka dawladda yar waa in tala qaadasho lagu wadaa oo la kala tala qaadanaya waayo ilaahay markuu amaanayo dumarka wuxuu ku amaanay fasalihatu qanitatun hafizatun lilghayb arrinka ugu horeeyay ooriyaha wanaagsan raaliyaadka ahi waa kuwa rag ilaahay adeecaya ragooda adeecaya taasa laga bilaabay aayada markuu ilaahay tilmaamay xaqi ninka lagu lahaa dumarkiina kaasu ku daray idan marka waa arrinkeen iyo aqbalkeen marka hore waa la wada tashanaya arrin waxay haysaabay soo jeedinaysa isaguna wuu soo jeedinaya laakiin go'aankii isaga yeelanaya hana la yaabina dee dumar oo taa hadda taa la yaabto waa inaad la yaabto madaxweynaha daacadiisana oo marka imika ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha la yiraahdo hebel baa ku amar diiday de wad la yaabaysa oo waxa oranaysa de isaga meesha hogaamiyo loo doortay sidee loogu amar diiday ma laga qaata arrinka de tanina waa saas oo kale halkana ninkii baa hogaaminaya taa waa inaan lagu murmin oo aanay de hogaamintii sinaanin ilaahay baa yidhi ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa wa mushkiladii shuuciyadu meeshii ay ku dhiiriyadeen weeye dadka culimada ah ee marka xaqiijinaya cadeynayayna lagu qabsaday baa ahayd qawaamnimadii iyo hogaaminta qoyska ninka alay hadii uu isagu dayaco oo uu iska dhaqaajiyo teedani waxay badaysaa hooyadii inay ubadkii iyo ehelkii hogaamiso laakiin intuu diyaar yahay in lagu diido maaha wixii arrin ee wanaagsan diinta ee u wanaagsan qoyska waa in markuu soo jeediyo iyaduna waayahay ay tiraa asalkeedabana ragga waxa deeqa ka farxiya xagga dumarka marka la eego waaya hebel jazaakallahu khayran waan yeelaya markay tiraa uu qaboobayaa hatta hadaana yeelin laakiin shardi un baa ku xidhan oo waa inaanu dambi iyo macsiyo iyo xaraan ahayn waxa uu faraya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu si raacinayaa inta waxyaabaha uu xaq ugu leeyahay waxa kamid ah in qalbigiisa ay farxad ku abuurto oo marka had iyo jeer uu la hadlayo ama uu eego iyadoo wajiga ururinayso oo cadhaysan ama diiqadaysan ama si uuna waa inaanu arag laakiin iyadoo faraxsan waa inuu arkaa waxyaabaha uu xaq ugu leeyahay ninkii waxa kamid ah alla tamnac nafsaha inaanay isu diidin haddaan cudur daar jirin marka uu ka doono galmo qoysnimo iyo raaxadoodii waa inaanay diidin haddaan cudur daar jirin haddii mesela cudur daar jira dee way ku qancin doontaa markaa saba inaanay diidma ka ahayna cudur daar jiraabay u sheegi cudur daarkii waxaa ka mid noqon kara cibaado farala inay ku jirto sida soomkii oo kale
ama xajkii oo kale cudurdaarkii waxa ka mid noqon kara inaanay daahir ahayn cudurdaarkii waxa ka mid noqon kara inay bugto oo aanay kari karayn arrimahaasi hadday jiraan ha u sheegto iyo iska aamusin oo diidma muujinine laakiin ha tidhaahdo waxaasaa jiro oo sidaasaanan u kari karayna raalli ahaw waqtigeeda aan gaadhin nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tan ka hadlaya wuxuu uhi idaa daca arajulu imra'atahu faltujib wain kaanat calaa dahri qatar markuu xaaskiisa u idhaa heblaayo muraad baan kuu leeyahay wixii qoys dhex mari jiray ha u timaado gaadiidka dushiisaba ha fuushanaatee hadday gaadhiga fuushantahay ha ka soo dega buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ha ka soo degto ila waynu arkaynay iyaduba wixii xaq ku lahayde waxyaabaha ninkii uu gabadhii xaq ugu leeyahay waxaa ka mid a inaanay ku kalifin waxaanu karayn hadday tahay meher iyo hadday tahay masruuf iyo wixii aanu kari karayn oo dhan waa inaanay ku kalifin nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina awala maa halaka banuu israa'iil imra'atu lfaqiir kaanat tukalifuhu min athiyaab ma tukalifu imra'atu lghaniy ila akhir alxadiid xadiidkaasoo saxiixa waxa uu nabigu uri meeshii laga raacay reer banu israa'iil qoysaskooda ay ku burbureen waxay ahayd gabadha qofka faqiirka ah ee uu qabo waxay ula dhaqmi jirtay ninkeeda sida taqaniga ahay ninkeeda ula dhaqantoo kale heblaayo waxaasoo alaaba baa loo dhigay anigana ay keen reer hebel biilkoodu waa intaasi anigana intaa isii dahabkaasay gabadha hebel xidhantay anigana isii dee isaga iyo isaguma isku mid baa marka wixii lagu kala qaato wanaag iyo farxad baa qiimo leh laakiin wixii qarjajac iyo diiqad lagu qaato maya karaahiya la socota waxa sidoo kale hadduu guursado inaad tidhaahdo aan kaa raali noqdo dee intaa igu shub wixii xaqaad leeda weydiisa laakiin ha toojar garayna si aad laaruush uga qaado taasina mid meesha ku jira maaha waxyaabaha kalifaada waxaa ka mid a inay ku kalifto xaaraan hadday diiqadan geliso ninkii ama ay tidhaa war meeshaa doonaysa ka keeno anigu xoolunbaan rabaa dee waxay dhacaysa inuu xaaraan markaa galo dabeetana uu guba adiga iyo ehelkaaga iyo ubadkaagaba marka waa inaad dardaaranka u raacisa hebelo wixii aad kartana noo keen xalaalna ha ahaado waxa uu xaq ugu leeyahay wixii uu siiyo inaanay dafirin nicmada iyo samafalka iyo arrin iyo adduun iyo diin wixii uu siiyo waa inay u qirtaa waa inay tiraa kaasaadna siisay oo kaasaadna siisay jazaaka allahu khayran allaha kuu kordhiya imikana wixii aad doo helaysana sii sidaasuu ku irmaanaan karaya haddii laakiin intii hore uu ku siiyeyba aada dafirto oo aada diidan tahay oo aad ka madxadeygaysa qiraalkeeda dee wuu kaa guraya oo irmaanaan kari maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dumarka la hadlaya ayaa maalmaha ka mid a waxay leedahay asxaabiyadda reer ansaareedihi intuuna soo maray buuna salaamay nabigu markaa wuxuu nagu yihi iyaakuna wa kufra almunacamiin iska ilaaliya gaalnimada dadka loo nicmeeyey siday u gaaloobaan oo kale ha u gaaloobina waan su-aalo waxaan ku yidhi arrintaasi maxay markaa nabigu waxau yihi mid idinka mida muddo dheer bay ag joogaysaa waalidkeeda nin la-aan bay muddo dheer ku sugaysaa ayay ku sugnaanaysaa uma yarzuquha allahu zawjan wayarzuquhaa waladan fataqdibu algadba fatakfuru wataquul maa ra'aytu minka khayran qad bal u fiirsadoo dib isu eegoo mid idinka midoo hablihiinanihi muddo dheer bay ag joogaysaa waalidkeeda ilaa ay guumoobiba gaadho tacnus bu riwaayadu ay tilmaamaysa ilaa heer canuuse ay gaadho guun noqon gaadhay dabeetana guunnimadii buu ilaahay ka badbaadiyo nin buu siiyey oo wuxuu siiyey ubad markaasumay maalmaha ka mida xoogaa yaroo dhibaato ah ka arkaysa kadibna waxay leedahay intay cadhooto weligayba khayr kaamaan arag galmadii iyo gasiinkii iyo ubadkii iyo adduunkii iyo wixii oo dhan way dafirtay daaqaday ka tuurtay waarna daa weligayaba khayrka amaanaan araga bay leedahay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasi waa gaalnima buu nebigu leeyahy nicmadii ilaahay uu siiyey ka gaalowday oo nicmadii ninkay ka gaalowday taa iska ilaaliya ayaa rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam riwaayo kaloo saxiixa waxa uu ku yihi laa yanduru allahu ilaa imra'atin laa tashkuru lizawjiha wa hiya laa tastagni canh ilaahay ma eegma naxariis la ku eegi maayo ruux dumara oo ninkeeda u mahadnaqayn wanaagiisa ugu mahadnaqayni iyadoo aan ka maarmayn
mana ka maarmayso umana mahadnaqayso hadda ogowyadii isagiina xaq baa loogu leeyahay wixii samafale ayadu samaynayso adeegay u adeegaysa iyo raali gelinta iyo raaxada iyo wixii ay siinayso waanu isla ugu mahadnaqaa labada waa lagu leeyahay wuxuu xaq ugu leeyahay hadday jeeb dhaanto daynay saacido ila baasha adduuna marna rag baa haya adduunka marna dumar ka haya bariyahan dambena waxaba la tilmaamayaa kiishadii inay u yar buurantay xagga dumarka oo jeebkii xagga dumarka u wanaagsan yahay baa la tilmaamaya siiba dadka dabadaha oo khayr allah siyadee marka tabaruca masaajidada la bixinayo ayaa waxaynu arkaynaa in iyagu naasir maano weynayiin lama qariyo wixii khayr oo aynaga ka hadlayne 70% ama 80 sadaqadii dumarkiiba u batay khayr allah siyaha ka abaal mariyo marka hadaba kolkay inkastoo waajib isaga iyo ubadkuba aanay isagoo aan waajib ugu lahayn xagga masruufka ubadkuna waajib aanay ugu lahayn oo isaga lagu leeyahay isagu islaamku isaga uu saaray haddana wuxuu xaq ugu leeyahay inay siiso ihsaan iyo samafal ninkeeda oo ay ugu deeqdo wixii ay helayso Abdullah nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu dhiirigeliyay wax bixinta dumarku ku dhiirigeliyay sadaqada meesha khayrka loo yabohinay inay ku bixiyaan ay ku shubaan dabata Abdullah ibn Mas'ud asxaabi jaliil oo weyn buu ahaa aqoon u la diintii ahkaamta oridiisi oo wada hadleena wuxuu armay anaga nagu baxaysa nagu baxaysa Zaynabay ma yada isku qoysbeena armaan ma laga yaabo inaan adiga kugu baxay ma way igu baxaysaa bal nasiibu nabiga u tagtay walkaas arintii bay weydiisay wuxuu yiri Abdullah rumbu sheegay wixii aad bixinaysa isaga iyo caruurta si sadaqada sunnaha waa la isla waafaqsan culimada qaar kood sakaday ka hadlaanba oo qaar kood ay leeyihiin sakadiina waa la mid sadaqadano isaga siin kartaa marka taasi waxay tilmaamaysaa runtii samafalka iyo wanaaga islaamku dhaxdhigay labadooda waxyaabaha uu xaq ugu leeyahay waxa kamid ah haday xoolo leedahay oo ay doonto inay bixiso ha kala tashato waa wax yar yar iyo waxa waaweyn wixii waaweyn oo kale midalan inkastoo xadiisku caam ka dhigay ha kala tashato wixii ay bixinayso ileen xoolaheedu waa xoolihiisuna waa xoolaheedii dadkii wax ma kala laha inagu hadaynu islaamkana sidan gaalada mani gaalada oo adiga arkayo ninkiyo gabadha wada socdaa laga yaabaa inay wax samaahiyaan waraada intaan hore kugu lahaa idib ama gaadiid iyagoo wada raacay isna u gaar isaga bixiyay iyana gaar ama cunadii iyagoo wada socdaa midiba gaar isaga bixiyay laana midiba account gaar u lahaa way kala socdaan inagu waynu isku jirnaa waqad afdaa ba'dukum ila ba'd ilaahay baa wuxuu leeyahay soo idinkan isdhaxmaray jirkiiba isdhaxmaray xagee maalu kala baxaya wuxuu wuxuu dhaqayaa waa ubadkiisa iyo oridiisa iyaduna cidda wuxuu dhaqaysaa waa ubadkeeda iyo ninkeeda marka rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wixii bixinaysa inay kala tashato laysa lilmar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi idni zawjiha wa fi riwayatin idha malaka zawjuha ismataha riwaayada saxiixa nabigu wuxuu ku yiri gabadha uma haboona inay xoolaheeda wax badan ka bixiso intihaag waa inay wax badan bixiso ilaa isaga oo ninku u idma mooyaane mar hadduu cismadeedii milkiyay oo macnaha uu soo mehersaday oo xilaheedii ay tahay xilihii isaga ay u tahay iyo xaas ay u tahay wixii culus ay bixinaysa ha kala tashato intihaaga sida laga fahmayo waxyaabuhu xaq ugu leeyahay waxa kamid ah inaanay diiqad galinin oo dalqada aanay su'aalin dalqada ilaahay isagu u dhiibay oo qiimeynaya xaaladda loo baahanayo laakiin yay ku hanjabaad uga dhigay munaawaraad intay la timaado ninkii yay goor walba dalqad wax la yiraahdo ku su'aalin oo ay diiqad galin xadiidkii saxiixa Abi Hurayra warinayay nabigu wuxuu yiri al-mukhtali'aat wal-muntazi'aat hunna al-munafiqat gabadha dalqada doonaysa ama inay ninkii ka iibsato ama ay ka siibata ninkii oo xilihiisi ay ka baxdo sabab la'aan arin iyo adduun iyo masruuf iyo la dhaqan wanaagsan wixiiba uu haya dabeetana nin kale laga yaabaa inay iska jeclaatayba iyadoo kale qabo waa dhici kartaa taa xaaladdu markay caynka tahay haday sida dalqad ku codsato nabigu ama isagiiba ay hunguri galisay tiraado adduunkan qaado iska kayf haday sida kaga baxdo nacdal budeebigu dusha uga tuuray calayhi salaatu wasalaam qoys islaam bay burburisay sabab laan gabadhii waa inay ku xisaabtantaa
ama waxa uu xaq ugu leeyahay waxa kamid ah iyadu tahay inay dareento inuu ku hinaaso markuu xumaan iyo macsiyo dambi ku arko waa inay garawsataataa wuxuu arkay iyadoo qaawan raga jaaniba ku dhaxmaran waqti xun socota silan akhlaaq iyo dhaqan xun ku jirta xaq wuxuu leeyahay inuu ku hinaaso wala maxaad waxaan u sameynaysaa jooji waxan waayahay waa inay tidaahay balow waa runtaa waan gafay xaaraanta iyo macsiyadaana ana u bareeray raali ahaw ilaahayna ha u toobad keenta isagana ha u garawdo inuu ku hinaaso waa inay ogaato inuu xaq u leeyahay waayo taasi waxay ka turjumaysaa jacaylka uu jecel yahay iyadiina inay ku hinaasto way markay ku aragto xumaan isagoo ku jira ay tiraa waxa iska daa oo ay u diiday tiraada cudur ha noo soo qaadano halka ha marino dadka ha la xidhiidhino dadka caasiga iskaga hadho waa inay iyaduna saasoo kale labaduba xaq bay isugu leeyihiin nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inna allaha yagaaru wa inna almu'mina yagaar وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه إلهي وهناسا مؤمن كنا وهناسا هناسها إلهي نوحوي مركو قفك كؤرك وحي وكحاران تنميبوك هناسا ربي سبحانه وتعالى وحا حق قول ليه أما اللي بدو دي بحق سقول ليهين وقتك أي وحدريما إني باهدو دي كلا قدان كرا هدي سقو الدريما همد وأنو يدي كوكوتا haddii yadii ay dareento xaq bay ugu leedahay inay codsato si isagu baa codsanay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabadh buu eegay maalin maalmaha kamida wuu kacay oo aqalku galayo isagoo soo maydhu soo noqday asxaabtu haddii ay weydiiyeen arrinkii buu sheegay wuxuu yidhi dareen hamadeed baa ay galay oo reerkaygii baan baahidii ku soo gutay sidaasay ku asturan waxa soo macaasiyo xaaraan iyo dad qaawan kolka aragtaan qofka dareen galo gabadhuna ninkeedii ha u kacdo isaguna xaaskiisii ha u kaco sidaa la isugu asturmo hana ogaado qofku tani waxay haysan inuu taa kalena haystiisuna hayso gabadhu waa inay ogaataa arrinku inaanu ifkala qura ahayn laakiin ilaa aakhira la isula dhaadhacayo oo labada qof haddii ay jannada wada galaan jannadiina ay isku soo noqonayaan iyadoo ilaahay iyadana da'yareeyay isagiina la da'yareeyay kuwaasaynu ilaahay ka baryaynaa inuu inaga dhigeen Aisha radiyallahu anha iyadoo nabi waag jooga ayaa maalmaha kamida inantiisa Faadima ayuu sheegay bushaarooyin ay leedahay iyaduna waxay yara jeclaysatay in waxun loo sheego marka nabigu wuxuu ku yiri fa anti zawjati fi dunya wal aakhirah Aisha adiguna adduuniya aakhiraba xaaskaygiiba halka waxaynu ka faa'iideysanaynaa labadii qof inay isku guursanayaan aakhira jannada haday wada galaan haday ku adkaato qofki oo ninkii ay dhibtay kadeedo wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mid ka dhicisaabay inay jirayso haduu ahlu jannaya xadiidka Mucaad ibn Jabal baa warinaya wuxuu nabigu la tu'dhi imra'atu zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'dhihi fa qatalaki Allah fa inma huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilayna gabadha ninkeeda adduunyada diiqad galisa ku dhigta haduu ahlu janna yahay waxa soo hadlaysa xurul ciintiisii mid kamida malaataana waaba laga hinaasiye kadibna waxa ay leedahay allaha ku dilee ninka dhibaatada iyo ciriiriga ka daa in yar buu agtaada joogaayo uu ka soo dhaadhici doonaayo anagu noo iman doonaayo marka taasoo kaga ridayso uga hiilinaysaana way jirtaa guud ahaan walaalayaal markaynu soo ururino meesha wax weyn baa yaala وإننا كقنعنا قيس نمدو إنه كم تهاي نعموين كلها وبحيو كل نمدونا أي كم تهاي كذيت كالدنيا ده مركا أضيبا قارس سجس عنا يا موقف اللي يراه أو بلا حاس أوريبا قارس سجس عنا يسوع إسكعر ملونا هانا يسأل ما إنا يربى بنان إسكت شوجيس يضل لما نشرين أرين تاسي وحص عنا يا ماها ضد كديبها وفكران دين توديها إلى الشدان راحة توديها إلى الشدان قيس كوديها إلى الشدان دور صونان توديها إلى الشدان هل كان سيقول دور صونان كان لها واساس وي حقوقنا الله إلى ليانا وتأدوني آخرة لقوا بدبادي يضل لقوا تنتانا درحمة يدي قدة أي لا ده وين أرجنا مركينه إلهي وطابت كأنه ووحي الدين يدليل وشجع إنه آمنه وإنه كقنا عنه وإن سلوكنا قال يدين لا وإن نجيسنين تواجب كإنه قامة تواجب كإنه قوية اختيارنا وملهن دور شيء إنه دليل كخلافه رجع الدمر بس أسين سكوانينينا إلهينا وحن كبر إياه إنه نقدر من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
dadka wanaaga maqla ee raaca ee u hogaansama. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.